السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قاليقة سودا هذا halka aad naga daawanaysaan waa حمد دائما جنال Xamdi Daama Janaal saaxiib haddii taa markii ku wareysa muuqaalkeena soo booqato سبسكرايب لايك شير كومنت la iskaga sii gambaleelka furo oo noqo muuqaalada ugu horeeyo saaxiibka ugu horeeya ee daawada كوكو laba واو أطورها وين maanta lama kala harino micnaha waxaa soo duubanaa kaligii aada ma jirtaan dhaaniyo soo dhiganiyo والإسجلايا نطورها وين أيدين كان محاول دينيسا والله horta soo dhawaada leeyahay asxaabta Xamdi Daama official soo dhawaada leeyahay mar walba idin taaganahay channelku waa channelkayga had kadibna ka soo muuqan doona iman doona waaba joogaa xilligan ka bilaabato waana taaganahay xilligan joogo marka saaxiib muuqaalkeena hadda aragto waa markii ugu horeysay laakiin ma noqon doonto markii ugu dambeysay ma noqonayso waa iman doona waa joogaa xilligan kadib waa fadhiyaa marka muuqaalada kalena iska iman doonaan haddii laga hor dhicin hadda waa kana odagii way joogaaye hadda maxaa leedahay hadda asxaabta ku baahan ay tiri maanta maleegaadi rabaa yaxbaa jire maanta waxaa rabaa asxaabteedii qaaliga horta maanta aad u qiireysanahay because waxaa rabaa qiso jacayl oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo walaasheena inaa idin la wadaago hadda idin la wadaagin runtii qof walba oo yani dareen jacayl am dareen Soomaaliyeed maqli jiray ma kasaysa yani قصة جعل مكان مغلمية بقى علوش بارك الله يقبطها بارك علوش مالك درنا سو سو وحنا نكون عزومنا بحيث ما دام الدرات من اوجيستي انا علي كاجرو دكتا ما حاولت اخبنا دكت ما انت والله ولا سوق هذا لكن دب ملها سماها لك سيدي بعرف كيف انا قناه سماها وين شوقنا اصحابتي waxaa rabaa qisadaaneeti gabadha ay la wadaagtay maxaan ku dhahaa Kambale joogta gabadha waxay dhahday yani qisadan gabar saaxiibtay ku dhacday oo yani maxaan ku dhahaa yani inaan kula wadaagayn waan u sheegay oo yani qoraalkan aan ku soo qoray laakiin magaceeda ka gaabsatay iyo meesha ay joogtay qisada meesha ay ku dhacday iyo wiilkii wixii dhan balse gabadha ila wadaagtay magaceeda way ila wadaagtay marka waxaa rabaa inaan magaceena dhortaa fiican idin aqriyo ma gabadha yani qisada ila wadaagtay taas magaceeda way sheegtay iska caadi because yani waxay dhahday qisada anima igu dhicin saaxiibtay ku dhacday marka saaxiibtad iyo wixii qarisay saaxiibtad meesha ay joogto iyo wixii qarisay wiilka qisada ku dhacday meesha wax ay ka dhacday la qariyay sida munaasabka macnaha gabadhii qisada ku dhacday wiilka qisada labada qofood macnaha magacooda ka haray laakiin sida kale falka u dhacay gabadhii soo sheegtay waxa soo dhan wala sheegaya okay ilaa barnoona xariis yaal markaa maqan xanuun waa hadda qiiroodani asxaabta gabadhan waxay dhahday waxa isbartay tiri gabar iyo wiil waxayna isku barteenay dhahday maya meesha isku bartay sheegina samaha laakiin qoraalka soo qortay macnaha waa isbarteen meel kamid ah magaalada isku barteen ani xitaa qoraa ka haya hataa ina qoraalka iska dhaafa isku dayaya waxay dhahday gabar iyo wiil ay isbarteen markay isbarteen waxay dhahday wiilka wuxuu ahaa dhahday faqiir فقير dadku way fahmayaan samaha wiilku wuxuu ahaa dhahday faqiir yani waxba muuseysanin yani nolosha waxay iska eedahay noloshiisa waxay iska ahayd mid yani low ah saas ay tahay gabadha nolosheeda waxay eedahay nolol iska haya yani gabadha waxa family waxay ka dhalatay gabadha oo taajiriin oo lacag leh abtigeed yani oo hooyada la dhashtay camal oo taajire gabadha yani la nooleed oo yani gabadha yani garab siinaayay oo maxaan ku dhahaye gabadha waxay gabadha yani family ka dhalatay taajiriin okay marka gabadhii wiilku way isbarteen markay isbarteen jacayl ay wadaageen wiilka sheekadiisa jacayl ma aysan ahayn waxay ahayd wax yani la dhaho iska foodo iyo qofkan lacag ay leedahay ku meel gaar ah ana xabadan lacag ay leedahay ku qabsa camal no ka ahayd aad magaalada ku mar laakiin gabadhii si dhabay wax u jeclaatay dabcan qof dumar in way iska qalbi jilcan yahay markay aragto wiilka xaaladda uu ku nool yahay iyo quruxdiisa iyo noloshiisa gabadhii wiilkii waa ay jeclaatay noloshii uu ku noolaana waxay isku dayday inay ka soo saarto maadaama ay ku guuleysatay inay iska soo saarto walow ayada ee markii dambe ku dhacday yani meeshii asaga uu joogay hadda u fiirsan halkaas waxa dhacday gabadhii wiilkii jacayl lab inay isku qaadaan inuu gabadhii wiilkii ay jeclaato asima jeclaanin inay gabadhii wiilkii si dhaba jeclaato in wiilkii uu gabadhii program ka weyn uu saaro inuu jecel yahay iskiga dhigo farxad been uu siiyo jacayl been uu siiyo gabadhii uu ka dhaadhacsiiyo in yani lacag uu ka bixiso uu tahriibo oo magafo maro oo Yurub tago Yurubta markuu soo shaqeysto oo nin isku filan noqdana gabadhii uu guursado ninkii gabadhii barnaamijkii uu la tagay wuxuu dhahay caawi isaacideey waxaan lacag oo qarash yani hadda ay siinaysid oo familkeeni gurigeena aan ku qarash gareynaysid oo familka aad siinaysid
يعني أنا يو قرش جري وبحايا مقفا مرايا يرو واتجايا هذا نوحي قرش يو نلاش مركان سوها جاجين وزجور سنينا جودي هاي ده هذا برنامج كيولي ماذا ذهب يوحي هنتي أي ولا هتلان جودي وأسوأ أوجد جدي مركا أوجد جدي ويلكي جودي وبحسه مقفا موتسه أدون كلنا نكبحسه دي بديو تاني دي بدي مركو تاني وجودي ماشي على ماشي والربي أو ويلك أو تاني wiilkii uu soo shaqaystay muddo badan ay sugtay lacagtii uu soo shaqaystay wadankii dib uu soo noqday gabadhii gabar wax isku yihiin qaraabe ay yihiin uu gabadhii wiilkii uu jeclaaday oo xiriir la sameeyay gabadhaas uu guursaday oo hanti iyo wax walba qarash uu soo helay gabadhaas uu ka bixiyay gabadhii waday rafaadkaas iyo silacaas ka bixisay maxaan ku dhahay qarashkaasay tigilisay waxaa soo yani u sameysay وجاكري وكل هاي وحول بجعل وين الله وين ولي يكون جعلان قلبي يكون دس جري تاس أتمنى نرى لي يهرم مرة إجلسي ميلا إجلسي ويحي قرش يكابحي إنا قوي على دارب توقوي على كرامات خفيف كفيلنا هاي بل سعني وجور إنا أنا مستقبل كل سمية في حد إذا متى قبل أنا أقول سنة ولا على معاني مع السلامة عمل gabadhii markii arintaas ay ku dhacday gabadhii way qaracantay way waalatay way isku dardartay gabadhii maxaan ku dhahay ayadana nooc kale taa noqotay gabadhii way qalbi jabtay ninna gabadhii way aamin weys wadankii ay joogto iskaga dadka daawatan galatay siyaad gabadhii oo isla Afrikadan leeyahay okay markii wiilkii maxaa ku dhacay gabadhii kaasoo kala laqdaba waxa idinka soo ilooway gabadha abtigeeda lacag ka xaday ma gafay asay ku mootisay gabadha abtigeed lacagta ee ka xad woo xiray inta soo bariye xirneed hadana abti waaye bedelka hooyo oo uu jiro taasoo korsade hadana waa la xumaatin gabadhiisa ay meel ku sii jirto uu soo wada gabadha abtigeed wuu habaaray wuuna iska buriyay maadaama xabsi ay ku jiri lahayd banaanku uu eeriyay ma fahanti wuxuu dhahay qof aniga xaday yani ma siiyeysan karin marka kalsoonida dhinaca ay dhimatay dhankaaga socon ninkii macnaha lacagtu xadeeda lahayd gabadhii ayadoo abtigeed buriyay ayadoo marba guriskiigana la saaxiibada lana nool haddana markuu sheekadaas ay sii maqashay qaracanka ay ka qadarto gabadhii maskaxdeeda way isku dhaxyaacday qof yani bukaan socdeeba noqotay gabadhii way iska socotaa asaga un bay ka sheekeynaysaa asaga un bay ka waxaynaysaa nin dambana ma aaminayso ayadoo dhan qaracanka ka qaaday gabadhii waxay noqotay bukaan socod ayadoo saas ee tahay haddana ilaahay iska aaminsaneed ee iska socotay oo sheekada qof walba markay uga sheekayso oo ka qaracmaayo حتى دتك قار أي وده أجي إنه حافظ يا أصحابي دتك لما وده أجي عيب درتي هذا بس أكو بريا شكل جوج واحد علي بس صار رنتي يوقعه ما دام الشيء كذا أنا تعمد حساسية ده عن صومالي محمد لو ذاك بس أتكي حوجا مرك واحد على أصحابتي قالي جا قبل يوو جورسده ودن كيو دب ونقضي يوروب تيسويس كهذي قبل يوي جوكتي حريف كان واحد علي مركو يوروب تجي أيو شيل باور قلي شيل باور وقلي مركو شيل باور قلي لما الواقع كود عمره لما الغرف مركو كده هذه كتب مصر لما الغرف ودن كيو دب ونقضي قبل أنا وجورسده قبل أنا ما بكون إله ما هو قبل أنا وجورسده قبل أنا حاس كيسي مركو جورسده وبحي جست قبل إنه هو حماي قبل أنا هو جورسده وبحي ودن كيو دب ونقضي شيلو قال مركو عيان جوجي قبل إنه واحد بقول ماس وقادن هذه ودن كيو ونقضي كان شيلو قالي لما ضلوا وذاك كود labada lug markay ka go'day oo wiilkii maxaan ku dhahay isbitaal la seexiyay gabadhaan inta joogto waxay dhacday nin labada lug ka go'an subxaana allah meelan geema qaanani markii muddo iyo sanad ay joogtay markuu soo socday waxay dhacday nin labada lug la meela geena ma qaanani oo aan socon karno aan qaado igar walaalo macaan oo meeshaada joogay dhaday ay iimaanada fanti ana madaxayga u baahanahay dhacday gabadhii ninkii furiin ka dalbato wax walba diirsan xitaa waa diiday ولا فرع النات جويلك جبدي وفرة حب فرع محل ده جبدي كلاتا ولسه وده وصاوع جبدي كلاتا عفسوا كذا البعض وبرية محمودة وكبرية استكي عفي وحبها أنا ده مع أخونا نقطنا نلاش يسلو ذاك واحد هذا أنا شلع على الله ولا أنا يعني عم حد هذا إنا إلى وذاكتو يعني يكون عسرات هذا فقير وحبه يسلين ونلاش كوجو تاعي إقيان هذا ما أنت على الله ولا هنا هذا أنا سلميش ليه وايد معناه شلع أنا فقير ما كاسة صاري maxaan ku dhahaa ka faa'iidi waay maanta adoo macnaha curiyaan oo naagta adiga ay garacday yani ka tagtay hadii hadana maanta aan ku sii galo isla wax faa'iido ma keenayso marka waxay dhacday maadaama oo yani waxay dhacday shalay yani asaas ay qiyaanta adoo waxba haysanin maanta ma ku aamini kariyay dhacday ma faanta adoo lugaha ka go'an marka waxay dhacday waji ma sameeysan awaali ma geysanin nolosheeduna ku dheeshay mustaqbalkayga ku dheeshay isheeda ka soo baxday ma faantay waa ku cafinaya waxa ku haysta ma jirto ma faantay لكن
maxaan ku dhahaa nolol ma kula qaadan kari walaalkii macaanaa tahay soo dhawow nolosheeda si kaleeto ugu soo dhawow laakiin farxad iyo nolol ma kula qaadan kari ma ku aamini kari ma kugu kalsoonaan kari ma fahante nolosha maanta aad taagan adaa ay keente walaalo macaanow maxaan ku dhahaa nagu kalabad wallaahi horta asxaabta soo dhawaada waxaan filayaa sheekada quruxda badneed qisada jecel ee qalbiga taabanaysana labada socoteena fili doonaa dabcan sheekaduna waa mid xasaasi ah dabcan qisadan dabcan qisadu way kala xanuun badan tahay way kala murugo badan tahay sidee u kala xanuun badan tahay u kala murugo badan tahay iyo haddana usii kala kurbo weyn tahay runtii sheekadanna waa sheeko oo qisadan aan dhehe waa qiso cajiib ah ee qalbigayga taabataan hal marka laga hadla dareenkaygana wada kicisay runaantii soomaali waxay dhahdaa xalaashiis xumeeyo waxa kara ku dambeeya dhahdaa soo marka meesha waxaa ka muuqato mase ay tahay qof qalbigiisa inaad ku ciyaarto oo qof kale oo qalbigaada noloshaada aad hubeysid waa mid xanuun isugu taaban doonto xataa maanta qof ka mid ah noloshaada maalin ka mid ah qof aad tiraahdo oo noloshaada qalbigiisa aad wax yar ka qaadato aad ka tagto ayaa wax weyn noqonaya in aad ka tagto iska daa qof adiga ku maalgeliyey adiga ku dhiirigeliyey adiga dartaa wax walba u sameeyey adiga dartaa guri ugu soo cararay inaad heer intaas leeg khiyaano intaas leeg aad ku samayso micnaha waxay tahay doqonnimo iyo micnaha qofkaasi micnaha heerka ku gaarsiisan yahay runatiina waxay tahay midaasna waxay tahay waa mid murugo leh waana mid u baahan in si gooniya looga hadlo mid si gooniya micnaha wacyigelin gooniya looga sameeyo marka waxay tahay midaan keenaysa micnaha waxay tahay waa mid khiyaanooyinka soo badbatay beriyaha ugu dambeeyay khiyaanooyinka soo badbatay waay tan hadda imaaday waxay tahay midaan iyo midka weyn iyo midooyin kaleba way dhaceen laakiin midaan maanta qalbigayga taabatay waa mid cajiiba runtii ma fahamtay waana u baahan arrin in laga hadlo mise arrin u baahan in dadka bini'aadanka laga wacyigeliyo dabcan ururaa jiro oo micnaha barnaamijyadaasi ku shaqo leh micnaha islamarkaana wacyigelin buuxa ka bixiya marka sheekadan way mid xiisa badan tahay qisadan markana waa mid xanuun ah oo qalbiga taabanayso marka waa midaan aniga ka digaya micnaha waxay tahay aan qof qalbigiisa inaad ku ciyaarto aad ka tagto oo qof kale qalbigiisa aad aado waa mid xanuun badan waana midna murugo badan saaxiibadana waxaan fili doonaa qaybtoos iyagana commentiga fikirkooda iyagana ay kusoo dhiiban doonaan aad marka wallaahi waa xanuun hadal badanna ma sii koobi karaayo waayo qalbigayga waa mid taabatay ma fahamtay lamana soo koobi karo soo marka markale meega agtaada soo yaalaa asxaabta waa usoo gabagabaynaynaa maadaama sheekada ay dhammaatay wallaahi sheekadu way murugo badan tahay saaxiibow adiga muuqaalkan iska daabanaya oo ha iska daaban oo keliya qaybta hoosena kaamirmaankiina xataa qalbigiisa micnaha waa dareemaysiin marka saaxiibow amba saaxiibey amba walaalow amba walaalay qaybta hoose commentiga dhaxan ugu soo sii sheekadan quruxda badan qisadan qalbigaada taabato waxaan fili doonaa qalbigaada adeeg maan dhagax maahin xataa qalbigaada hadduu yahay mid dhagaxa way taaban doontaa haddii ay gabar kulaala tahay haddii ay qof jeceshaa qalbigaada way taabanaysaa marka qaybta hoose commentiga dhexdhac inoogu soo siiya aad u mahadsantihiin saaxiibada channelkan ku xiran xamdi dheeman muuqaalkeena quruxda badanna hadduu ku xiiso geliya amba sheekadeena aad ka heshay amba sidoo kale muuqaaladeena sabskareebka dhac iskaga siiya almaamin oo calaamada gambaleelka dhaxasiiya oo noqo daawada ugu horreeya muuqaaladeena quruxda badan halkan aan soo